بسم الله الرحمن الرحيم waxaa jira maaragtay shirka aan hadda ka soo baxnay wuxuu ku saabsanaa ama ay ahayd ujeedkiisu marka dhowr arrimood buu ahaa wuxuu ahaa isla xisaabtan oo hay'adaha in marka hore la weydiiyo waxa ay ka qabteen hadda ka hor qayladhaan baa jirtay dawladdu dhiibtay bishii November oo abaarta ku saabsanaa iyo December ay gudbisay waxaa jiray liis dheer oo fara badan oo laga gudbiyey muxuu ahaa dhibta jirta iyo meelaha ugu daran loo gudbiyey qaybtaas waxay ka ahayd isla xisaabtan oo war maxaa la gaarsiiyey dadkii abaartu saamaysay bay ahayd hay'adaha dhan baana la isugu yeeray waxaana halkaa jeergaraynaya ama shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha waxaa kaloo meesha jiray iyadana in la weydiiyo maxaa haysaan abiilkaas maxaa ka qabateen maxaadse hadda haysaan oo idiin qorshaysan ujeeddada shirku sidaasu ahaa waxaana hay'ado badan baa waxay sheegeen inay maaragtay waxay kaloo weheliyo saddex ahayd in qayladhaantii hore la xoojiyo qayladhaan horaa jirtay in la xoojiyo oo meeshii awal November hadda waa laga soo gudbo 3 bilood 4 bilood baa la maray marka in la xoojiyo qayladhaantii hore oo kor loo qaado hay'adana lagu baraarujiyo inay boorka Jafaan oo waxaa kaloo jira iyadana waxaa loo soo bandhigay hay'adaha shirka loogu soo bandhigay sahamo laga sameeyay dalka waxaa jiray joogta looga sameeyaa sahamada dhibaatada oo ah intii ay bilaabatay oo dhan ilaa 4 bilood 5 bilood joogta loo sameeyay bil walba warbixin baa laga sameeyay bil walbana warbixinteeda waa la wadaagay waxaa marka meesha ka soo baxayay kuwii ugu dambeeyay oo December la sameeyay in oo lagu sameeyo loo soo bandhigay waxaa kaloo loo soo bandhigay oo hay'adda OJA iyo hadma iyo sahan laga sameeyay Soomaaliya oo dhan oo ay Puntland ka mid ahayd wixii ka soo baxay ayaa iyadana meesha lagu soo bandhigay hay'adda hadma wixii iyaduna ay sahankeedii ugu dambeeyay oo ku soo martay waxaana soo baxay waxa ugu daran oo hadda ka jira dalka oo ay ugu dhibta badan oo dadku aad baahida weyn ugu qabaan ama miyaha ku noolaado ama magaalaha ku noolaado ama tuulaha ku noolaado inay yihiin biyuhu inay koob yihiin kadibna cunto inay laba tahay marka ku xiga inay jiraan cudurro ka dhashay abaartu dhalisay iyo biyo la'aantu dhaliyeen oo ay ka mid yihiin cununka iyo shubanka iyo kuwa kale badan ay ka mid yihiin malaariyada oo iyaduna markii xanuun yaro hargab qofka qabto markiiba ku dhufanaysa ay jirto intaas in lagu soo ogaaday sahamadii iyo xagga caafimaadka waxa kale la soo ogaaday in iskuulada qaybo kamid ah laga waayay muxuu ahaa ay dadku ciyaalada daroob out ku noqdeen cunto la'aan darteed waxyaalahaas oo dhan baa meesha lagu soo bandhigay waxa la soo bandhigay iyagana ceelal fara badan oo istaraatiijig ah oo loo baahnaa in biyaha laga dhaamiyo inay fadhiyaan oo dadku dhib weyn u qabaan intaas ayaa lagu soo jeediyay meesha lagu soo bandhigay hay'adaha qaybo kamid ah ayaa sheegay wax badan oo ay qabteen iyo kuwa u qorshaysan oo ay qabanayaan waxaana lagu ballamay ilaa isniinta dambe in la isugu soo noqdo oo war rasmi ah oo cad dhibta jirta jawaabta laga bixinayo in laga keeno shirka ujeedkiisu intaasu ahaa meeluhu marayna intaas ah